munaasabadan lagu furayay dhismaha cusub ee lagu soo kordhiyay qaybta dhimirka ee cisbitaalka Hargeysa waxa ka qayb galay wasiiru dowlaha caafimaadka Somaliland mas'uuliyiinta ururka caawiya dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee Somaliland marti sharaf kale iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala cisbitaalkaasi ugu horreyn waxa munaasabada ka hadlay Sheekh Aadan Yuusuf iyo Professor Eid Ali Salaan oo ka mid ah saraakiisha ururkaasi dhammaan dadkii ka qayb qaatay aad baan ugu mahadnaqanaa jazakumullahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro waa idinka arka wixii aad sadaqadaysateen dhismihii in maanta maxaan ku dhamaystirmay oo insha Allah hadii ilaahay dhawaan dadkii loogu talagalay la soo gelin doono oo adag doonto iyadoo oo magaranaysa lagu daryeeli doono guud ahaan lacagta ku baxday waxa weeyaan $85,000 ayaa ku baxday maxaan ku raadayay dhismihiisa iyo qalabeyntiisaba lacagtaasi lacag hay'ad nooga timid ma aha waxaan idin cadeynayaa in aan bininaha ahaadee lacag hay'ad ka timid oo maanta aan ku darnay aan jirin lacagtaasi hay'ad lacag dalka gudihiisa iyo dibadda laga soo ururiyay marka walaalayaal horta waxaan doonayaa inaan idin sheego in haddaynu isku tashano aynu wax qabsan karano waxa weeyaan waxay lagu qaato iyo waxay lagu baxa ee soo gaadha shaqaysu malaha taa waxaan doonaynaa inaanu abuurno hay'ad madax bannaan oo qaadan karta amba European Fund ahaato amba USAID ahaato ama meel kale ba ahaatee aqoonteedina leh wadaniyana ayaan ku tala jirnaa inaan sameeyno waxa kale oo halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan culimo iyo wax garad kale kuwaas oo dhammaantood ammaanay ururka hirgeliyay dhismahan cusub wasiiru dowlaha caafimaadka Somaliland Maxamuud Jaamac Galaal iyo agaasimaha guud ee cisbitaalka Hargeysa Axmed Cali Askar ayaa iyaguna soo dhaweeyay shaqada ay qabteen ururka samafalku waxaan u mahadnaqayaa ururka dhimirka ee Somaliland ee ka soo jeeda dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Cardiff shaqada aad qabateen Ilaahay ha idinka jisaayo mariyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa ururka dhimirka ee Somaliland hawshan ay ka howlgaleen ee runtii ay maanta dhismahan ay nagu soo wareejinayaan waxaan leenahay Ilaahay khayrkiisa sawaabka aakhiro iyagana ha ka abaal mariyo ugu dambeyn wasiiru dowlaha caafimaadka Somaliland ayaa xadhiga ka jaray dhismahaasi cusub Xasan Galeydon Cable TV Hargeysa